بسم الله محكمة درجة كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal 1 Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan 23 jir ah ina Bishaaro Cali Xasan ku dhashay Saako 2 Cali Dhubad Nuur Siyaad 46 jir ah ina Maryam Faarax Cabdulle ku dhashay Galguduud kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedeysanaha koowaad Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin Salmaan iyo Axmed waxa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka Galmudug oo ka socotay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 eedeysanaha labaad Cali Dhubad Nuur Siyaad waxa si gaar ah loogu eedeeyay in uu kooxda Al-Shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta una sahmiyay xaflad ka dhaceysay Guriceel 23 bishii sanaad 2019 isla markaana uu keenay eedeysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedeysane Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakada qaraxa una soo direen Guriceel sidaasna uu eedeysanaha labaad ku geeyay goobtii xafladda ka dhaceysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Cali Dhubad Nuur Siyaad uu ka hor cadeeyay garsoorka in isagoo ka shaqeysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo jooga degmada Ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedeysanaha koowaad uu geeyo Guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyay xafladii markii ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhaceysay Guriceel uu u yimid eedeysane Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakada qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysane Cali Dhubad Nuur Siyaad uu soo wacayay eedeysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah 1 dukumeentida ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedeysane 2 taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedeysane 3 jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyay oo uu xirnaa eedeysanaha koowaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in 1 dambiile shabaab Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan 2 dambiile shabaab Cali Dhubad Nuur Siyaad ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq